magacay waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Cabdulqaadir Axmed dadka badankood Soomaaliyeed ay yaqaanaan meesha hadda aan joognana waa Library of Congress-ka waa maktabadda adduunka ugu weyn waxaa in muddo soo socotay laakiin markii ugu dambeysay si rasmi ah waxaa loo furay 1897 buildingkan hadda dhaxan joognana waxaa loogu magac daray Thomas Jefferson waa madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka asagana markii uu horeysay u hibay buugta u horeysay librarian ku bilowday waxaa lagu qiyaasay close to 5 milyan oo item oo buug ah oo adduunka dhan laga soo aruuriyay marka dadka qaarkood waxay isweydiiyaan waxaan oo buug ah iyo journal iyo magazine iyo journal iyo jaraa'id iyo xagee ka imaadeen si loo soo aruuriyaa library wuxuu leeyahay xafiisyo wuxuu ku leeyahay Nairobi Qaahira New Delhi India iyo Rio de Janeiro Brazil marka ka Brazil oo kale South America iyo Latin America wax ka soo baxa la daabaco idil ayuu noo soo diraa ka Nairobi wuxuu noo soo diraa wax alla wixii Afrika lagu daabaco book ama journal heeso video wax walba ay soo diraan safaaradda soo dirta Nairobi qaybta hadda aan joogno waa qaybta Africa iyo Near East la yiraahdaa waxa laga soo aruuriyay Africa iyo Near East yaala Soomaaliya example u soo qaato tusaalahan Soomaaliya dawladda centraalka dawladda dhexe inay burburto waa la soconaa laakiin intayna burburin ka hor wax alla wixii Soomaaliya la daabacay 19 wixii ka horreeyay oo af Soomaali ama Ingiriis iyo Talyaani Carabi lagu daabacay halkan ay yaalaan waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya laga qoray adduunyada dhan ama afka saaba lagu qoray meeshan ay ugu badan wax inta ugu badan halkan ay taala Library of Congress maktabadda Library of Congress-ka ay yaalaan collection-ka ugu badan ee Soomaaliya laga qoray intii burburka ka horeysay intii ka dambeysana sidaas oo kale Nairobi office bana laga soo diraa still waana loo keenaa maxaa ka mid ah waxyaabaha yaalo kale oo hadda la heli karin jaraa'idka ka mid ah xigta October 73 bilaabatay January 17 1991 ayay dhamaatay intii ayadoo dhan halkan ay taala adduunka meel kale kama helisid waxaa ku horeeyay Somali News la yiraahdo oo halkan hadda adin ku tusayay Somali News journal Soomaali ka soo baxo ahaa wuxuu socday 1960 ilaa 70 waxaa jirta wixii ka horeeyay 100 sano ka hor ka soo qaad inta Soomaali waxa dhum la qaadan ka soo qaadba waa jireen dadkan reer galbeedka jaraa'idkooda Soomaali waxa lagu qori jiray even Mareykanka jaraa'idkiisa halkan library waxa yaala qayb la yiraahdo historical American newspapers marka hadda dib u noqotid waxaan article baan aqriyay hadda ka hor 1910 article-kaas journal I think in New York Times ka ahaa waa 1910 Soomaaliya dagaaladii daraawiishka ka sheekeynayaan oo Ingiriiska oo ka cabanay in daraawiishta ay ku xog badan tahay ay leeyihiin 30,000 oo ciidan wata Sayid Maxamed Cabdul Xasan Soomaaliya waa ku khasaarnay dad baan nooga dhamaaday waa dhul qax ah aan ka qaxno aan iska deeyno aan ka baxno baarlamaanka Ingiriiska ka dooday journalkaas lagu soo qoray marka sooyin saas oo kale waa arkaysa laakiin dawaanaha halkan timaadid oo jaraa'idkaas 100 iyo 200 sano jiray dib ugu noqotid waad ka helaysaa marka wax Soomaali laga qoray diinta Soomaalida marka ay wadanka soo gaartay wadaadada faafiyay dariiqooyinka saalixiyada ama qaadirida hada qaadirida buugan waxaa qoray Sheekh Aweys wuxuuna ka qoray wuu gabayaa iyo nabi amaan iyo shuyuukhda asaga ka horeysay ayuu amaanayaa Sheekh Cabdiqaadir iyo ayuu amaanayaa marka buuga title-kiisa ma tusaya Sheekh Aweys Maxamed Al-Qaadiriya Al-Baraawi ayaa qoray waa sheekh Soomaaliya la ziyaartay biyuule lagu soo ziyaartay kitaabkan waxaa la daabacay 80 dhawaa laakiin wadaadka wuxuu qoray 100 sano ka hor marka ayadoo farq ku qoran warqado ku qoran ayaa la isu geeyay kitaabkan laga soo saaray marka taariikh badan baa halkan taal kaas Carabi ku qornaa buug kale Carabi ku qornaa asana oo xiiso leh ayaa halkan yaala oo la yiraahdo رسالات زعماء الصومال إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي والقاسمي وفاميلي هذا حكومة أبو دبي وحال قري كن 870 buuggan waxaa qoray
odayaashii Soomaalida ee waqooyiga Soomaaliya deganaa 1830 waagu Ingiriiska yimid wadanka ayay ka cabanayeen ma doonayeen inay gaalo isticmaalsato oo isticmaar waxay diideen Ingiriiska ilmaha gaalo ka wada dhigo marka warqadii u wada qoreen warqadii ay qoreen way kuwan wadaadadii iyo khiyaartii joogtay ama qabiiladii waqooyiga Soomaaliya joogtay ee bari ayaa suldaankaas warqadahan u qoray ay leeyihiin ka codsanayaan inuu suldaanku xukumo Soomaaliyada waqooyi si Ingiriiska aga badbaadaan oo buugan waqti hadda aan ku jirno oo 22 xiisa ayuu u yeelanayaa dadka Soomaaliya bulshadadeeda iyo qabaa'ilkeeda xiiseeya waa kaas oo ka sheekeynaya qabaa'ilka Soomaalida iyo si u degaan iyo meelaha ay degaan ayuu ka sheekeynaya wuxuu kaloo ka sheekeynayaa dawladda ugu horreysay Soomaaliya 56 ka soo bilaabaya ilaa iyo 1990 dawlad walba cidda ay ka koobneed yaa xukumay yaa wasiir yaa madaxweyne ah waxaan u baahday oo aan wadanka joogo coach baan hayman journal baan u baahday oo hadda kor Soomaaliya laga qoran oo yar madbacadii qortay najmi October radaayo af Arabi ku soo bixi jiray marka kaas aan u doontay Library of Congress marka ninka Soomaaliga aan u tagay isnaqaanay ciyaartooyna ahaan jiray latigiisa wani waxaan joorka saraadinay kaale buu yiri waxaan tagay Library of Congress headquarters weyn meesha ku shaqeeya laba waayiga mid waxa la Jefferson Building mid Madison marka Jefferson ku shaqeeya sida meesha ugu tagay safiis ku baaran waqti dhag waa soo baxay joorka waa soo baxay on ku sawirana anigu afro kaal xiran oo leedo midkan gari waxa la kala garin soo xiyay aan joorka ku farxay waxaan waxaan ku dhacay wuxuu Mareykanka wadanka si joogan joorka soo baxay soo ariyaan oo soo diraan fisherskaas loo geliyaa marka bari ilaahay qofka madax noqdo they know wadanka ugu dhashay moor Mareykanka ka maqan aniga wadankii joorka soo wala daadiya جرون فيشر لو سماه وإن لك أركيب جريا وإن لك بجريا وحنا جاب قف كان وحنا دورستين in 10-20 years from today إني وحنا قدام وقت. روادة وتي لسمي كون سجال بقول هي لبية تضباط كي سدحية تضباط كي أي سعون ترتي هسه كون سجال بقول يسديت كي أيا لو قرأين دكسية السر لقد جو فصل كذا وقدام بيا. markaanu dib u qorida la damaanay waxa buugii ku lumay dacdarooyinkii dagaalka sokeeye hase yeeshee waxaanu ka helay buugii oo dhan waaba si la yaab leh Library of Congress oo aanu kala xidhiidhnay Cabdullaahi Soomaaliyo oo uu nooga soo diray qofka raba hadaba waxaan hadda idin sheegayo oo buugaag iyo waxyaabahan treasure-ka ah oo wadan halkan yaala maktabadan aan joogo saaid ugu sheego meesha ugu badan wax Soomaali laga qoray ee yaalaan marka sababa waxaas aad ku heli kartaan dadka Mareykanka joogo oo fududahay waa in halkan imaadaan waan halkan timaadid oo lagu sameeyo warqad yar oo ID ah oo aqoonsi ah maswarkaadu ku yaalay magacaada oo library ku timaadid marka timaadid waa public library public macnaheedu waxa weey ummadda iskale adduunka dhan buu u furay library-gan waa free lacag ma aha waad imaanaysaa buugga dalbanaysaa lagu keenaya waa sawiran kartaa waa iskaan garan kartaa waa ka saasaad aad u sawiran kartaa